arrimo gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar iyo waliba Geekos oo kulan gogol xaareel weelaraday odayaashii xildhibaanada ku jeeda degmada Elberde ee gobolka Bakola kulankii waliba ay ka wada tashi oo muddo socday kaasi oo lanku hadalay dhismo golo deegaanka degmada Elberde ee gobolka Bakola iyo wad qaybsiga kuraasta oo si wacyigelin socday muddooyinkii ka dambeeyay taasi oo qayb qaadayeen siyaasiyiinta madalow degmada Elberde iyo odayaasha dhaqanka waliba koreey meelo ku hadalay qaar ku mid ah dadka qayb galay goboshan loo dhigay in la isku imaado qaabilaadeedan ay tahay degmada Elberde horumarkii iyo konsolkii sida loo dhisay lahaa wad ku mahadsantiin mahadda kadib dhammaan dadkan sharafta badan ee ehelkee meesha isku yimid wasiirada leh xildhibaanada leh odayaasha leh aqoon-yahaneynta leh way salaamayeen salaanta bacdi waxaan u sheegaynaa wasaaradda dawladdii Shariif Xasan Elberde dhismaheedii wasaaradda arrimaha gudaha way ku sambarxootay wasaaradda aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku faracsanahay inay maanta soo bandhigto roolkii ama qorshe ay ugu tala gashay inay deegaamada Koonfur Galbeed ay ku horumariso khaasatan gobolka Bakool Elberde wasiirka waa uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo soo dhigtay siyaasiyiinta ka soo jeeday waatan way fadhiyaan in kala badan way maqan yihiin marka in walba meel ay joogtaba insha Allah ta'ala akhbaarta waa gaarsiinina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo reedan heliisyoog maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar iyo waliba sheegay inta kulanku wada tashiga ee muddooyinkii ka dambeeyay socday kaasoo ku hadalay dhismo golo deegaanka degmada Elberde intuu ka socdo wadada guula Elberde marka farxad weyn bay noo tahay xildhibaanada ka soo jeeday deegaanka odayaashii iyo wasiiradii iyo dhammaan isaga nimaana shirkan iyo ismaanshaan maanta ma mid go'aan loo gaaray ma aha mid awood qaybsi ah laakiin waa mid gogol xaar ah oo lagu gogol xaaray leeyahay wal ma taqaana deegaankii dadkii wacyigelintii bay qayb ka tahay si loo wacyigelin lahaa marka waa muhiim Koonfur Galbeed waxay ku guuleysatay labadii degmo ugu horeysay Soomaaliya oo dhan hadda kadib inta la isku soo noqday dawladana la soo aasaasay hadii cadaadada hore u sameysatay laga reebo inay laba degmo maanta ay u dhisantay waa guul oo ay ku soo hoytay Koonfur Galbeed haddana aan rabna sanadkan gudihiisa 5 degmo inaan dhisno oo wasaaradda arrimaha gudaha qorsheedu ilaa 5 degmo Koonfur Galbeed in la dhameystiro Elberde waa koobay ka tahay arinteed inay bilaabato kali waxay ku xiran tahay mataqaana sidii arrimahaas loo daadejin lahaa loo heshin lahaa maadaama siyaasiyiintii matalay deegaankaasi dhammaan baydhabo ay ku sugan yihiin shir gogol xaar in la isugu yimaado la dhaha arintan maxaa ka sameeynaa marka farxad weyn ay noo tahay soo mataqaana soo dhawaada kaliya waxaan ka wada hadlaynaa ay tahay deegaankii in fariin la sii gaarsiin la dadkii waxaan idin soo wadno waa wax maamul idinka gacmiin ku dhisanaysaan ma aha wax dawladda Koonfur Galbeed iyagu geenaysa ma aha wax anaga aan geenayn ma aha wax xildhibaanadu geenayaan laakiin waxaan rabnaa inay tashtaan ay fariistaan ay markaas kadib ay dhahaan sidaan aan u baahanahay waa muhiimadda taas inaan wada fahanno oo dadka deegaanku inay gaaraan deegaamada dhibaatooyinka badan oo jira waxay tahay markii la dhamaanta Elberde halkan loogu shiray dadka reer waxa laga yaabaa Elberde inay isweydiiyaan hawshii baydhabo lagu qabanaya laakiin macnaheedu ma aha in hawshii baydhabo lagu qabanayo furitaankii rasmiga ahaa ee dhisidda golihii deegaanka Elberde madaxweynaha Koonfur Galbeed furi doono waxaana lagu furi doonaa Elberde marka kan rasmiga maalinkaas way laakiin hadda waa gogol xaar oo loogu diyaar garoobay siyaasiyiintii dadkii xildhibaanada deegaanka matala isfahansiinayaan la leeyahay bal hawshan saana la sameynaa sida ugu wanaagsan loo sameyn karo marka farxad weyn bay noo tahay in hadda caqabadihii iyo hawlihii jiray qaar kamid ah xalintooda hadda maanta ay ku jiraan odayaasha qaar kamid ah oo ilaa xuduri meelahaas lagu xalinay markii la dhameeyay kadibna aan rabna si toos in meeshaas loo wada tago marka farxadaas ay noo tahay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Afaani telefishinka iyo raadiyaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo